الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد. kelmaddan waxay ku saabsan tahay in aan dadka muslimiinta ah ceebahooda la raacraacin loona xil qariyo. inna allaha satiirun yuhibbu satr. ilaahay waa mid asturid badan oo jecel asturaadda. sidaa daraaddeed ayaa rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi ilaahay wuxuu soo dhoweynayaa ruuxa mu'minka ah maalinta qiyaame, waxaanu ku dejinayaa naxariistiisa. wuxuu ku odhanayaa isagoo qirsiinaya dembiyadiisii, ma xasuusataa dembiga noocaas ah, ma xasuusataa dembiga noocaas ah. markaasaa ruuxii muslimka ah wuxuu odhanayaa haa rabbiyow, haa rabbiyow. dabadeeta markuu ilaahay dembiyadiisii qirsiiyo, ruuxii muslimka ana uu maleeyo inuu halaagsamay, ayuu ilaahay odhanayaa markii aad adduunyada joogtay waan ku asturay, maantana waan ku dhaafayaa. dabadeetana kitaabkiisa ayaa midigta laga siinayaa. markaa walaalayaal, waxaa la doonayaa in dadka muslimiinta ah loo xilqariyo oo wixii xumaan ah ee kaaga muuqda aanad faafin, cid kalena u sheegin ee aad qariso. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi ina aladiina yuxibbuuna an tashiica alfaaxishatu fi aladiina aamanuu lahum cadaabun aliimun fi ddunyaa waalaakhirah. kuwa jecel inay dadka mu'miniinta dhexdooda ku faafto xumaantu, kuwaasi waxay leeyihiin cadaab daran oo xanuunjinaya adduun iyo aakhiraba. xadiidka cabdillaahi bni cumar radiallahu canhuma uu werinayo wuxuu leeyahay cabdillaahi bni cumar sacida rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam almimbar. rasuulku wuxuu koray mimbarka, markaasaa wuxuu ku dhawaaqay cod dheer isagoo odhanaya yaa macshara man aslama bilisaanih, kuwa carabkooda ka islaamayow, walam yufdi aliimaanu fii qalbih, iimaankuna aanu gaadhin qalbigoodow, laa tu'du lmuslimiin, muslimiinta ha dhibina, walaa tattabicuu cawraatihim, ceebahoodana ha raacraacina, fainnahu man tatabbaca cawrata akhiihi almuslim tatabbaca allaahu cawratah. arrinku wuxuu yahay ruuxa raacraaca ceebta walaalkiisa muslimka ahi uu leeyahay, ilaahay baa ruuxa ceebtiisa raacraacaya. waman tatabbaca allaahu cawratahu yufdixu, ruuxa ilaahay ceebtiisa uu raacraacana wuu fadeexadaynayaa, walow fii jawfi raxlih, gurigiisa dhexdiisaba ha joogee. dabadeetana cabdillaahi bni cumar radiallahu canhu wuxuu eegay kacbada, waxaanuu yidhi maa acdamak, maxaa kaa weyn, yacni shay kaa weyni ma jiro. wamaa acdama xurmatak, shay xurmadiisa iyo qadarkiisu ay kaa weyn tahayna ma jiro. waalmu'minu acdamu xurmatan cinda allaahi mink, ruuxa mu'minka ah ayaa ilaahay agtiisa kaa xurmo badan oo kaa sharaf badan. xadiidka tirmidi ayaa werinaya. qofka muslimka ah markaad ceeb ka aragto, waxaa kula gudboon inaad asturto oo aanad faafin. shaacirkiina wuxuu yidhi lisaanaka laa tadkur bihi cawrata mri'in fakulluka cawraatun walinnaasi alsunu. carabkaaga ha ku sheegin ceeb ay cid kale leedahay, adigoo dhani ceeb socotaa tahay, dadkuna carrabbay leeyihin. wa caynuka in abdat ilayka macaayiban fasunhaa waqul yaa caynu linnaasi acyunu. ishaadu haddii ay kuu muujisay ceebo cid kale, ka ilaali ceebtaa, waxaanad ku tidhaahdaa ilay, dadkuba indhay leeyihiin. haddii aad walaalkaaga muslimkaa ceebtiisa asturto, ilaahay baa adigana ceebtaada asturaya adduun iyo aakhiraba. rasuulku sala allahu calayhi wasallam wuxuu leeyahay xadiidka abu hurayra uu werinayo, muslimna uu soo saaray, laa yasturu cabdun cabdan fi ddunyaa, addoon kale adduunyada kuma asturo ilaa satarahu allaahu yowma alqiyaama. haddii uu asturana ilaahay baa maalinta qiyaame isagana asturaya. ruuxa ceebta samaynaya laftarkiisa waxaa waajib ku ah inuu is-asturo oo macaasidii ka dhacday aanu ku sheekaynin. rasuulku sala allahu calayhi wasallam wuxuu leeyahay kullu ummatii mucaafan ila almujaahiriin, ummaddayda oo dhan waa loo dhaafayaa, kuwa xumaanta muujista mooyaane. wa inna min almujaaharati, muujisashada la muujinayo xumaantii waxaa ka mid ah an yacmala arajulu bileyli camala, ninku inuu habeenkii wax sameeyo
dabadeetana uu waa bariisto iyadoo ilaahay uu asturay oo dadkii indhahoodii uu ka qariyey dabadeetana uu yidhaahdo hebelow xalay waxaa iyo waxaasaan sameeyey wuxuu waa bariistay iyadoo ilaahay uu asturay asturkii ilaahay uu asturay buu iska qaaday markaas kaa loo dhaafi maayo walaalayaal iyadoo la ilaalinayo ceebaha dadka ayaa waxaa la sharciyeeyey in marka dadka loo gelayo albaabka la garaaco oo idan la weydiisto in la soo galo yaa ayuha aladiina aamanuu laa tadkhuluu buyuutan ghayra buyuutikum kuwa ilaahay rumeeyayow ha gelina guryo aan guryihiinna ahayn xataa tasta'nisuu ilaa aad fasax ka dalbaysaan oo aad oggolaansho u weydiisanaysaan inaad soo gashaan rasuulku sala allahu calayhi wasallam wuxuu yidhi innamaa jucila alisti'daanu min ajli albasar oggolaanshaha la weydiisanayo marka albaabka la soo gelayaba waxaa loo sameeyey aragtida daraaddeed oo ah inaan la eegin dadka ceebahooda xadiidka kale ee abu hurayra radiallahu canhu uu warinayo ee bukhaari iyo muslimna ay isku waafaqeen rasuulku wuxuu leeyahay qofka qisha oo eega guri dad leeyihiin iyagoo aanay u fasixin waxaa u bannaan dadkaa guriga lihi inay isha ka soo ridaan oo ay isha mudac ka geliyaan ugu dambayntii qof kasta oo arka meel walaalkiisa muslimka ah lagu ceebaynayo ama lagu dhibaataynayo waxaa la gudboon inuu daafaco rasuulkuna sala allahu calayhi wasallam wuxuu yidhi ruuxa daafaca walaalkii sharaftiisa ilaahay wejigiisa ayuu ka daafacayaa maalinta qiyaame naarta wallahu aclam wasubxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaghfiruka waatuubu ilayk